taariikhda markii ay ahayd 20kii February sanadkii 2020 waxa dhigaha shacabka ku soo dhacay war weyn oo ay maamulka gobolka Banaadir ay ku dhawaaqeen oo ah olole balaaran oo magaalada loogu safeenayo looda dhex wareegaysa shacabka magaalada Muqdisho waxaanu hore ugu dignay oo aanu fariimo u gaarsiinay inaan la aqbali doonin in xoolo magaaladan iska dhex socdaan iyadoo laga duulayo sidii bilicda iyo nadaafadda ee magaaladani loogu shaqeyn lahaa dad badan ayaa u riyaaqay iyagoo u arkay talaabo loo qaaday dhanka ilbaxnimada iyo nidaamka 6 sano ayaa ka soo wareegatay maalintaas maanta Muqdisho si la yaab leh ayay isu bedeshay waa magaalo si xawli ah u dhismatay daaraha dhaadheer cilka ay isu shareereen wadooyin cusub ayaa la dhisay laakiin luuq kasta laami kasta iyo barxad kasta oo aad marto waxa dhex jeefa tobanaan lo ah haddaba sidee ayay ku dhacday in magaalo malaayiin dollar lagu maalgashanayo ay xoolo wadooyinka xirtaan si aan xididka dhibaatada u soo saarno waxaan sameynay baaritaan qoto dheer waxaan qiimeyn ku sameynay habdhaqanka bulshada nidaamka dhismaha ee magaalada iyo sababaha dhabta ah ee xoolaha ku dhiirigelinaya in magaalada ay sii joogaan natiijada inoo soo baxdayna waxa ay dusha ka saartay laba qodob oo si dadban u wada shaqeynaya injineerada magaalada dhisaya iyo shacabka magaalada ku nool laftooda dhismaha caasimadda maanta waa mid xawli ku socda balse waa dhisme diiradda saaraya quruxda dibadda isagoo iloobay nidaamkii nolosha markaad fiiriso caalamka horumaray ama magaalooyinka kale ee nidaamsan guri kasta dhisme kasta iyo xaafad kasta waxaa naqshadeeda ku jira meel si gaar ah loogu talagalay in qashinka lagu ururiyo waa meel xiran nidaamsan oo gawaarida qashinka si fudud ugu qaadi kara iyadoo uusan qashinka dibadda ugu soo bixin laakiin Muqdisho injineeradu waxay dhisaan guryo aad u qurux badan oo malaayiin dollar ku fadhiya misana aan lahayn 1 mitir oo laba jibaaran oo qashinka lagu ururiyo tani waxay dhalisaa dhibaato weyn qoyska ku nool gurigaas quruxda badan marka uu qashinka ku ururo ma helaan meel ay dhigaan natiijaduna waxa ay noqotaa in qashinka laga soo saaro guriga oo la dhoobo laamiga ama afafka hore ee dhismaha qashinkaas wadada la dhigay wuxuu casuumaad furan u yahay looda hadalada ma goorgoorici karno horta gowra xal maahan maxaa mushkilada lagu xalliyaa lama rabe waa inaan xal keenaa waxaan rabnaa qorshe inaan u keeno loodii dadkan waxaan ka codsanaynaa qof walba loodeeda iyo geeleeda inay habeenkii xakamaysato oo si u maaraysato qodobka labaad ee ugu weyn uguna xanuunka badan waa shacabka laftirkooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin si joogitaanka looda maahan oo kaliya dhismo la'aanta meelaha qashinka ee waa dhaqanka dadweynaha ee la qabsada in qashinka lagu daadiyo wadooyinka jidadka waaweyn iyo goobaha muhiimka ah looda Muqdisho joogta maanta waa xoolo la qabsaday nidaam nololeed cusub oo dadka Muqdisho ay abuureen marka shacabka ay maalin kasta qashinkooda haraaga raashinka kartoomada iyo xitaa caaga ay soo dhoobaan wadada dhinaceeda waxay looda u diyaariyaan raashin maalinle ah loodaas uma baahna in ay dibadda magaalada ugu baxdo si ay daaq u raadiso maxaa yeelay quudkeedii wuxuu yaalaa albaabka hore tani waxa ay keentay in looda ay halkaas ku taranto isu aruursato oo ay jilal cusub oo aan abid arag caws dabiici ah ay ku dhaxdhashaan magaalada daarahan dhaadheer iloodan magaalada Muqdisho isma keenayaan loodan dhibaatooyin fara badan baa magaalada Muqdisho ay ku haysaa aad u fara badan ilaa iyo meel walba daarahan dhaadheer iloodan isma keenayaan canshuura bixina oo arkaysaan lo ah horteena fadhiso difaacna ugu jirta suwaxdu ceerinayna habeenka oo soo fariisanayaan haddaba sidee xal loogu heli karaa dhibaatadan daashatay caasimadda xalka wuxuu u baahan yahay isbeddel dhab ah oo dhinacyo badan taabanaya waa in injineerada magaalada dhisaya ay mas'uuliyad iska saaraan in guri kasta uu yeesho nidaam qashin saar oo u gaar ah tan ugu muhiimsanna waa in shacabka reer Muqdisho ay fahmaan in bilicda magaalada ay ka bilaabato albaabkooda inta aynu qashinku wadada ku qobayno waxaan cuntada siinaynaa dhibaatada aynu ka cabanayno waa inaan kala dooranaa ma waxaan rabnaa magaalo casri ah oo dunida la tartanta mise tuulo dhismayaal qurux badan leh oo ay xooluhu dhexrooraan